waxaan rabaa inaan idin siiyo update-kii ugu dambeeyay 48 saacadood wixii soo kordhay oo xaaladda coronavirus ah 48 saacad ee ugu dambeysay waxaa soo kordhay 70 xaaladood oo positive ah rag waa 48 dumarna waa 22 xaaladaha soo kordhay 67 kamid ah waxay joogaan gobolka Banaadir saddexna waxay joogaan Somaliland dadka laga helay da'dooda waxay kala tahay sidan soo socoto ka yar 20 sano boqolkiiba waa 3 20 ilaa iyo 39 sano waxa waaye 48 40 ilaa iyo 59 waa 27 60 sano iyo ka badanna waa 22 tirada guud ee dadka laga helay Soomaaliya oo dhan waxay isku noqonaysaa 671 dhimashada waa 3 qofood saddexda qofood qof waxay ku kala geeriyoodeen Banaadir Puntland iyo Somaliland tirada guud ee dhimashada waxay noqonaysaa 31 Ilaahay u naxariisto waxa ka bogsaday 3 qofood tirada guud ee dadka bogsaday waxay noqonaysaa 34 sidaan mar walba ku celinno wacyigelinta takhaatiirta culumada bulshada kala jaadka in la xakameeyo cudurka waa muhiim inaan ka taxadarno oo aan ka hortagno aad iyo aad muhiim u tahay saad arkaysaan bulshadii ku siifida maalin walba waxaa soo baxaya nambaro cusub oo tiradooda ay kor u sii kacayso insha Allah inaan dadaalno mowqifka dawladda uga aadan cudurkan coronavirus waa inaan ku dadaalno in aan qofna ku waayin oo soo nooga dhimanin cudurka dawladda dadaalkeeda waa badan yahay habeenii maalin waxay u taagan tahay qaybaheeda kala duwan ma aragtay in laga warbixin laga helo xaaladaha soo kordha qalab sidii looga heli lahaa isbitaallo cusub oo dadka loogu gurmado sidii la heli lahaa dabcan dadka la baarayo tiradooda markii la fiiriyo waa yarihiin waa la soconaa magaalada in calaamado badan dad leh ay u dhinteen la sheego midna waa xaqiijin shaybaar lagu xaqiijiyay qofka inuu u dhintay cudur ama isbitaalka ku jiro ama isagoo dhintay hal keen isbitaalka Martiini hal laga qaado swab results hal xaqiijiyo laakiin bulshada inuu ku faafay oo dad badan oo geeriyooday lagu tuhmaayo inuu cudurka u geeriyooday way jiraan dawladda mar walba waxay kula talinaysaa dadweynaha in ay dhageystaan takhaatiirta wasaaradda caafimaadka inay soo doontaan adeega caafimaadka oo ay soo wacdaan nambarada loogu talagalay qofkii iska shakiyo calaamadaha isku arkay waa la talinayaa dawladda waxay aad ugu dadaalaysaa inay kor u qaado awoodeeda baarid ee cudurkan qof walba iskaga shakiya oo calaamadihii leh waxaa lagu waaninayaa inuu taleefanada soo wacdo oo takhaatiirta uu dhageysto markaasna laga qaado baaritaan la xaqiijiyo xaalkiisa tirada aan sheegayna dadka guud ahaan laga helay ma aha dad intoodaba isbitaal Martiini ku wada jira ama gobolada isbitaallo ugu jira qofka markuu positive yahay waxa laga yaabaa inuusan calaamado lahayn waxa laga yaabaa in xanuun yar oo aan yaani qandha iyo waxyaalo badan oo guriga lagu maareyn karo inay jiraan waxa lagu la taliyaa qofka inuu gurigiisa joogo laakiin iska dhowro bulshada gurigiisa dadka iyo inuu iska dhowro soo asagana yaani waxa kameysnaada dadkii uu jecel yahay dariska iyo saaxiibada iyo qaraabadina uusan contact ula sameyn falgal si uusan cudurka u fidin laakiin waxa lagu la taliyaa xaaladiisa haday iska bedesho inuu soo wacdo adeega uu isbitaal Martiini yimaado ama gobolada meel allaala meeshii lagu daaweynayo taas micnaheedu waa muhiim dadka in la baaro baaridda in kor loo qaado waxa la bilaabay gobolka Banaadir in si random ah oo talanteel ah loo raadiyo oo saambalo loogu qaado ayadana waa idin la socodsiin doonaa heerka uu bulshada ku fiditaanka gaaray laakiin waxa muhiim ah mar walba in aan xaqiijino dadka u dhinta cudurkan oo qof walba la baaro siyaasadeennana waa inaan ka hortagno in qofna noogu dhimanin intii dhimatay Allah u naxariisto inta xanuunka uu haayo Ilaahay ha ka qaado laakiin muhiim waxa waay qofka inuu is dhowro banaanka iska xakameeyo meelaha ciriiriga uusan gelin magaalada waxaa laga bilaabay in la qaybiyo geedaha afka lagu xirto mask
qof walba markuu bannaanka u baxaayo uu afka xirto sidoo isu dhowro baabuurta gaadiidka publicada marka la raacayo sidoo kaleeto qofka inuu gacmaha iska dhaqo haddii uu xanuunka dareemo ama calaamadihii dareemo inuu wacdo nambaradii loogu talagalay dadka waaweyn cudurrada qaba in laga ilaaliyo xanaano goonina siiyo ilaahay hana garab galo waa dadaalaynaa. Wassalaamu calaykum.